murashaxa madaxweyne xisbiga talada dalka haya kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi ayaa maanta kaadhkiisii codaynta doorashada madaxtooyada ka qaatay howlka hay-adda shaqaalaha dowladda ee magaalada Hargeysa. gudoomiyaha ayaa markii uu kaadhkiisa codaynta qaatay waxa uu la hadlay saxaafadda isagoo fariin u diray asxaabta siyaasadda uguna baaqay inay ilaaliyaan tartanka xorta si looga baxo ayaa uu yidhi gudoomiyuhu qabyaaladda. halkan maanta waxaan inuu qaadano warqadii codbixinta makaarkii codbixinta alxamdulillaah dhalinyaro wanaagsan oo si fiican u shaqeynaysa waqtigoona ma qaadan ayaana siiyey waana ilaahay mahadi waxaanu diyaar garoobnaa doorashadii waxaan u maranayaa 10 cisho haray intii kaarka la qaybinayay dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay kaarka qaataan waayo muwaadinka xuquuq baa lagu leeyahay marka waa waajib lagu leeyahay muwaadinku inuu guto inuu kaarka qaato doorashada ka qayb galo cid dalka maamul doonta uu ka taliyo waa xuquuq diiniya waa xuquuq sharciya oo dastuuriya labadaba inuu fuliyo waayo haddii kale waa qof aan jirin madii hadduu yiraahdo dalka iska qayb gali maayo wuxuu la mid yahay qof maqan oo kale marka taa aad baan ugu celinayaa labada gobol ay ka socdaan Togdheer iyo Broodjeex dadku inay ku dadaalaan inay qaataan kaarkooda halkay ugu rideen xor buu yahay dimuqraadi way dadku xisbiyada waxaan u samaysanay qof waliba halku doorbido xisbi doorbido iyo qofku isagu la jeclaado inuu doorto xor buu yahay xisbiyada waxaan u sameeyay inuu ka baxano qoqobnaanta iyo qabiilka iyo jeclaysiga marka dadku iyagoo xor ah oo sidii ilaahay xorriyada markay dhasheen u siiyay ee ilaahayna bini'aadamka u karaameeyay ah inay qaataan warqadooda qofkay doonayaan iyo xisbiga doonayaan codayaan intaasaan maanta fariinta aan diray ay tahay waxaan doonaynaa inuu dalkeena nabad iyo horumar u sameeyno doorashada iyo xisbiyada ma rabnaa inay fadqalalo iyo colaad iyo hadii la yiraahdo fawda inana galaan ma annaguna waa soo dardaaranaa naftayada dadka nagu taageersana waa dardaaranaa dadweynaha waa ku dardaaranaa xisbiyadu waa inay horumar inoo keenaan dimuqraadiyadu waa inay horumar inoo keentaa iyo caqli ma aha inay rabshad iyo buuq kale inoo keento aad iyo aad waxaan uga codsanayaa dadka inay ka horumariyaan qarannimada qofnimada iyo shakhsi wuxuu doonayo inaan qaranka helin qofkuna waxba heli maayo bulshada waliba waxaan sii farayaa bulshada oo dhan mutacalimiinta iyo dadka waa aragga ah culimada iyo qoladiina saxaafadda oo cid walba gaadha idinka laftiina waa inaad noqotaan qaar dadka wax u tara ee aan inta xun u farin waxa la yiraahdaa qolada saxaafadda soo bilowday oo malaha islaam ahayn waxay yiraahdaan haddaan war xumi jirin war wanaagsan war maaha waa qaacido lagu soo bilaabay baash haddaan balaaya jirin war ma jiro way broqaad dadku sheegaan baa marka hadii inaga meediyaheeni TV-gii iyo website-kii iyo jaridii ay yiraahdaan si aad war xasaasi ah u hesho balaad u sheeg imika waxa la soo baxay toogyada war xasaasi ah war degdega rooba daima nimcaad qortay ma hebel halka ay xayri marka laftiino ilaa ummadii baa daawatay kor u qaado xagga khayrka badiya maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan shabakada caalamiga ee Harwanaag News magaalada Hargeysa.